daawadayaal ku soo dhowaada barnaamijka xogta dahsoon oo aad inooga barateen inaan xiliyadan oo kale idiin soo gudbinno. aanu ku bilowno bariga dhexe. Mareykanka ayaa maraakiibtiisa dagaalka ee burburiyaasha ah iyo sidoo kale gujisyadiisa xambaaran nukleerka u soo dhaqaajiyay badda cas, waana xilli ay taagan tahay xiisadda u dhaxayso Israa'iil iyo Iiraan, taas oo Iiraan ay ku hanjabtay in ay weerari doonto islamarkaasina ay ka aargoosan doonto Israa'iil kadib markii bilowgii bishan August magaalada Teheraan ee waddanka Iiraan lagu dilay allah u naxariistay hogaamiyihii dhaqdhaqaaqa Xamaas ee dhanka siyaasadda Ismaaciil Haniya. wixii ka dambeeyay dilkaasi, Iiraan iyo xulfadeeda ay taageertay ee ku sugan Ciraaq iyo Syria, sidoo kale Lubnaan iyo Yemen ayaa ku hanjabayay in ay dhulka la simi doonaan Israa'iil, taasoo khalkhal iyo cabsi xooggan ku beertay Israa'iil. Mareykanka oo ah taageerada ugu weyn ee Israa'iil ay haysato ayaa markaasi maraakiibtiisa wax burburiso iyo sidoo kale gujisyadiisa xambaara quwadda nuclearka waxa uu soo dhaqaajiyay bariga dhexe, gaar ahaan badda cas, waxaana uu Mareykanku ku hanjabay in uu Israa'iil ka difaaci doono Iiraan iyo xulfadeeda, iyadoo markaasi ay jirto in dowladda Iiraan ay taageero ballaaran ka heshay dowladda Ruushka, kuwaas oo markaasi ka soo horjeedo gardarrada iyo dhibaatooyinka Mareykanka uu ka wada bariga dhexe, islamarkaasina uu ku garab istaagayo Israa'iil. waana xilli Ruushku agabyo militari oo casri ah uu geeyey waddanka Iiraan, kuwaas oo ay isku difaaci doonto haddii uu weerar kaga yimaado waddanka Mareykanka iyo sidoo kale Israa'iil. waana xilli khalalaase xooggan ay ka taagan tahay bariga dhexe, taas oo garwadeen uu ka yahay Mareykanka iyo Israa'iil, iyadoo markaasi ay jiraan dhaqdhaqaaqyo xooggan oo Mareykanka uu ka wado bariga dhexe, kuwaas oo ku garab istaagaya Israa'iil si markaasi uu uga difaaco weerar kaga yimaada Iiraan. Mareykanka ayaa si uu u difaacay Israa'iil wuxuu xalayta soo dhaqaajiyay gujiskiisa USS Georgia, kaas oo qaada gumciyada nukleerka iyo sidoo kale 154 gantaalaha Tomahawk cruise missile. Mareykanka ayaa sidoo kale soo dhaqaajin doona markabka lagu magacaabo Abraham Lincoln, kaas oo ku hubeysan diyaaradaha jiilka shanaad ee F-35C iyo sidoo kale F/A-18 Super Hornet EA-18 Coroller, kuwaas oo haddii ay soo gaaraan bariga dhexe dab ku sii shidi doonto qalalaasaha hadda ka taagan bariga dhexe. waana xilli dowladda Shiinaha ay taageertay Iiraan. dagaalka qarax bariga dhexe ayaana sababi karo dagaalweyne markaasi adduunka oo dhan gaaro, iyadoo markaasi dowladda Shiinaha iyo Ruushka ay muujiyeen taageerada ay u hayaan Iiraan haddii markaasi ay weerar kala kulanto Israa'iil iyo Mareykanka. sidoo kale dowladda Turkiga ayaa ku hanjabtay haddii Israa'iil ay weerarto Lubnaan inaysan gacmaha ka laaban doonin oo ay taageeri doonaan Lubnaan.